haddii adduunka dumar la'aan noqdo maxaa dhici lahaa? su'aashan maaha mid sahlan, waayo dumarku maaha keliya kala badh dadka dunida ku nool, balse waa laf-dhabarta nolosha iyo sii jiritaanka bini'aadamka. haddii dumar la'aan la noqdo, dunidu waxay geli lahayd marxalad mugdi ah oo ay ka mid yihiin qodobadan hoos ku xusan. dhammaadka jirida dadka extinction. tani waa saamaynta ugu horraysa uguna weyn. maadaama dumarku yihiin kuwa ubadka qaada ee dhala, dumar la'aan waxay ka dhigan tahay inaannu jiri doonin jiil cusub. dunidu waxay noqon lahayd mid ay ku hareen rag keliya oo maalinba maalinta ka dambaysa sii gaboobaya ilaa qofka ugu dambeeya uu dhinto, taasna ay ku dhammaato taariikhda bini'aadamka. burburka dareenka iyo naxariista. dumarka waxaa lagu yaqaannaa dareen deggan, naxariis iyo xidhiir bulsho oo dhisan. gurigu wuxuu waayi lahaa diirimaadkii iyo degganaantii hooyonimo ama xaasnimo. bulshada waxaa yaraan lahaa is-uturidda iyo xalinta khilaafaadka si nabad ah, maadaama dumarku door weyn ka ciyaaraan dhexdhexaadinta iyo naxariista bulshada dhexdeeda. isbeddelka dhaqaalaha iyo shaqada. dumarku waxay qayb muhiim ah ka yihiin cududda shaqada ee caalamka, gaar ahaan qaybaha caafimaadka iyo waxbarashada. inta badan kalkaaliyaasha caafimaadka iyo macallimiinta dugsiyada hoose waa dumar. maqnaanshahoodu wuxuu keeni lahaa burbur ku yimaada adeegyada asaasiga ah. wax soo saarka dhaqaalaha adduunka ayaa hoos u dhici lahaa kala bar, iyadoo ay meesha ka baxayaan malaayiin qof oo wax soo saari lahaa. amniga iyo rabshadaha. cilmiga nafsiga iyo taariikhduba waxay muujinayaan in bulshada ay ragga keliya ku badan yihiin ay u dhowdahay inay noqoto mid rabshado badan. tartanka waxaa kordhi lahaa tartanka xun iyo isku dhacyada, maadaama aysan jirin dheelitirkii dabiiciga ahaa ee ay dumarku keeni jireen. niyad jab. raggu waxay lumin lahaayeen dhiirigelintii iyo ujeeddadii nolosha, taas oo horseedi lahayd in heerka ismiidaaminta iyo niyad jabka uu cirka isku shareero. quruxda iyo hal-abuurka. dumarku waa astaan qurux iyo dhiirigelin u ah fanka, suugaanta iyo nashqadaynta. adduun dumar la'aan ah wuxuu noqon lahaa mid midab la'aan ah. gabayada, heesaha iyo farshaxanka adduunka badankoodu waxay ku dhisan yihiin ammaan iyo qiimayn loo hayo haweenka. gunaanad. sida uu sheegay abwaankii weynaa ee Soomaaliyeed, haween waa lama huraan. la'aantood nolosha ma laha macno, adduunkuna ma laha mustaqbal. dumarku waa hooyada, walaasha, xaaska iyo gabadha, waa isha naxariista iyo sii jiritaanka nolosha. adduun dumar la'aan ah maaha adduun ay bini'aadamku ku noolaan karaan.